أنا ضلك يجي شوجا أو كفر أحسن أو نلو ونكسن كو هايستا بارهنتي كتجي ضلك يجا waxay ahayd 2016 waxaan ka mid ahaa ardaydii ka qalin jabisay iskuulada dugsiyada sare ee Hargeysa kadib waxaan go'aansaday in anigu aan wadada dheer ee taariibtaan marka aan tijaabiyo iyadoo aan familygayga raali ka ahayn qof kastoo iga naxayaan raali ka ahayn laakiin anigu aan aaminsanahay inay mustaqbalkayga wax ka bedeliso taariibtu dee waa wax runtii hada kelmad ahaan wax fudud laakiin qofka arka ama dhex ama maraa runtii waa arrin aan u adkaysan karin qof bini'aadan 2018 markaan ka tagnay markaad saa uga baxdo wadankaad sharciga ku joogtay iyo nidaamka saxda ah aad nolol kala gasho waxaad gelaysaa nolosha bilaa sharciga nolol aad u adag oo aad u xanuun badan in lagu hadido in lagu qabsado in lagu qafaasho in meel burcay Hargeysa kale u jirta lagaga qaado lacag $10,000 iyadoo laga faa'iideysanayo duruufahaaga iyo sharci darradaada kadib runtii idima soo koobi karo waa waxaan buuga ka qoray oo aad dareemi kartaan inta ay baaxadeedu leegtahay waa nolol aad u dheer oo waqti dhowr sano qaadatay marka haddaan waxaad ka taataabto waxyaalihii noogu dhibka badnaa waxa kamid ahaa anagoo saxaraha marayna in gaarigii saxaraha aan ku mareynay uu gabigiisiba uu nala dhaco dabadeedna meeshaan u soconay in ay jirto 200 kilomitir 200 kilomitir oo saadkiina uu naga dhamaaday aan waxba sidan oo nimankii gaariga waday ay yiraahdeen waxba idima jirto meeshii lugeeya aan halka lug dheer galay oo asxaabtayadii aan arkayno oo mid u dhacday oo mid kasta aan dul tagno mise waa ka baxday oo nafba kuma jirto markaan dhowr cisho soconay oo ay saadkii iyo biyihii iyo baadkiiba naga go'ay runtii waa nolol aad u xanuun badan waxyaalahan xasuusto waxa kamid ahaa gabadh reer Muqdisho ahayd waxa kamid ahayd dadkii socon kari waayay dadna waxay tiri iska taga walaalayaal anigu halkan aan ku dhimanayaa waxaan leeyahay maxaad saankaaga tagnaa kama tii karo waa inaan ku qaadnaa ama ku jiidnaa waxay tiri ninkaygiiba halkan hore u soo maray waa la sheegay wuxuu ku dhintay meel saxara oo noocaas oo kala oo lug la marayo ninkaygaas annaga ka soo daba qaatay oo aruurtii baan ka yimi waxaan ka daba tag marka maadaama ninkayga halkan ku dhintay waxay wanaagsan meeshu ninkayga ku dhintay inaan ka daba tagay iska taga intii lacag yar ugu jirtay oo aan badnayn oo ay rabtay inay taariibta ka gudubto way lacagtan aruurtii ugu dira runtii waa waxdii aan qiimeyn karayn qofka ku sugan baa qiimeyn kara markaan ku gudubnay anagoo isla waxaad gasheen markii aan badbaadnay intayni badbaaday anagoo isla waxaad gasheen nolol oo waad badbaadeen baan waxadana la galay magafi runtii magaxaanta waa wax iska aynu suradayn karo laakiin waa qof bini aadan ah oo inoo kala marka hore laakiin waa dad ku heshiiyay inay dadka dulmiyaan oo dilaan oo bahdilaan oo baabiyaan si lacag uga sameeyaan inay lacag ka sameeyaan bay naftaada ugu goynayaan dadna markaan magafi lugta la galayba waxa la yiraahdaa lacagtaasoo qofkii baa laga rabaa kun ah runtii dee qof dadka qayb baan haysan qayb baan ehelkooda xitaa haysan oo aan awoodin dadna waxay noqotay nin kasta inuu qayliyo oo meel ku qayliyo markii hore waxaan soo bal wax isku bixiyo siraad keenay laakiin markii dambe waxa la qabtay mid group lacagta bixin kara waa inaga horeeyay mid kamid ah inta la soo qabtay oo horteeda inta la dhigay miis noocan oo kala waa masaabiir ugu qaraacay dadna waxay noqotay in argagax aanu ka celin karo weyno nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan horteeda lagu jirjarayo marka waa dad sida xoolaha ariga baa loo kala iibsanaya oo laga ganacsanaya oo lacag laga sameeynaya oo wax qofka damiir kale aanu dulqaadan karin weey xaladahaas markaan ku gudubnay hadana waa runtii marxaladaad ka yaabaysid hadana marxalad kale sii galaysaa oo tii wadankaad galaysaa oo jeelle oo jeelta lagu rido kinoo lagu darayo biyaha lagu siinayo oo xanuun ay ku dhacayaan si aadan tamar u yeelan baa lagu baabiinaya kasab waxa noqonaysa wax iska dhul yaala
qayb baa dadka iyagoo curyaanaa la soo saaraa xanuuno kaloo ka sii badan dadkii baa ku bahdilaya oo shakhsiyadaada iyo argaagaan lagu ogolayn oo waxa la leeyahay qofka waxaan muxuu ahaa ajnabiga ah dabadeedna waxa laga yaabaa in adoo gaari saaran lagu buufiyo bahasha cayaanka lagu buufiyo oo kale runtii bahdilaad tii ugu dambeysay baa lagu bahdilayaa waa lagaa ganacsanayaa xoolaha tahay qof xoolaha wad ka liidataa xayawaanka xitaa saa looma dhaqmo ugula dhaqmayo taa haddaad haddana ka badbaado baddi baad gelaysaa runtii badda waxaan galay 3 jeer waxaan xasuustaa markii ay noogu adkeyd waxa ahayd badda oo inta doontii naga xumaatay doontii nala caariday oo iskala kaay sabaynayso biyaha milixdan la soo galiyaan oo la googoynayaan marna ay samada inta sawaado mar la soo degayso markay saa u soo degayso asleeda hadda idin dhamaatay dadkii waxay cunaan ay waayeen dabadeedna dadkii qayb ay waasheen maadaama ay jeelal soo arkeen saxaro soo arkeen baddiina ay saa ku noqdeen nin dhalinyaro oo naga mid ahaa waxaan xasuustaa oo ay isu sawirtayba inuu meeshaan u soconay baa aanu nimi oo yidhi war xaggaad ugu wadaan waaba jawaayo iska tuuray doontii cidu jooji karaysaa ma jirto dee waa meel la isu luxaba lama joogo marka waxaynu ka sheekayn karnaa maaha wax aad u xanuun badan waana aafo ummaddeena saamaysay runtiina aniga iyo dad yaroo fara ku tirisa baa laga yaabaa ka soo noqday arrintaa anigu markaan xaaladaha la kulmay baddii dhowr jeer tijaabiyey saxaraha maray waxaan go'aansaday inaan dalkayga ku noqdo markaan dalka ku soo noqday maalintii aan soo degayey runtii dee nin cadaab ku jiray cadaabtii ka soo baxay inta cadaab laga saaray janno oo kale la geeyey baan ahaa waxaan ka soo degnay berbera beenadii sheegi maayey intayadii joog wada socnay bad ciidaan dhukanay waxa ciidan ugu kalifay inaan dhukanana waxay ahayd waxaanu soo aragnay in dalka qiimaha uu leeyahay aan soo aragnay oo waxa uu kalifay markii aan haddana arkay dhalinyartii oo dhibaatada aanu ka soo baxay oo aan soo maray ku sii ordayo oo aan waxba u arag oo haysta in hergeysa ka tagaano ay burcad tagayaan oo kale gabadhoodu aaminsan oo aad ka joojin karayn oo si kasta aad u qayliso aaminsan inaad been u sheegaysid ama aad tahay qof hadafkiisa ka soo leexday baa u kaliftay inaan buugga ka qoro oo aan u magac daro ciidaan dhunkaday aniga de farxadda ii tahay qof kastoo aan arko waddankiisa ku qanacsan oo sharaf ugu dhex nool oo rabo inuu wax ka qabsado runtii aniga sharaf bay tahay inaan la kulmo arko niyaddayna ay dhistaa laakiin waxaan niyad sabaa markaan arko mid ordaya oo dhibka anigu soo maray ku ordaya ama la yidhaahdo doon intaasoo 100 oo dhalinyaro ah oo u bixi dalka baa degtay runtii aniga marka kasta oo waxaas ay dhacaan xanuun bay tahay oo ma aha waxaan arki karo intaa kadib waxaan u mahad celinayaa hay'adda soo qaban qaabisay keer sidoo kale soonyo aad baan ugu mahad celinayaa oo iyadoo qaybka kulanka kan waxaan sidoo kale mahad ku darayaa RFI oo suurto gelisay inaan anigu halkan idila joogo buugaygana uu gaaro caalamka oo dhan sidoo kale halkan waxaan rabaa inaan ilaahay uga baryo Ciid Maxamed Daahir oo ahaa ninkii ka dambeeyay buugga kan aan ku qoray taariikhda inuu caalamka oo dhan gaaro RFI u soo bandhigo isagana waxaan leeyahay ilaahay naxariisto idinkana waxaan jeclahay inaad la wadaagtaan intaas oo u ducaysaan ka aad baad u mahadsantihiin wixii su'aala wad weydiin kartaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh